qabtaan horeyna way jireen hawl xadan oo aan qabtaan فينا قرنا بالله لأنه سعرنا حق صدوبه سلسلة qayb ka noqon doona lacagaha dalka iyo ummadda Soomaaliyeed ku hawlgalaysa maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in aynan waxba ka hagran doonin dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay shilkii gaari ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo ay dhibaato xoog leh ka soo gaartay taageerayaashii ciyaartoyda degmada Wadajir. haddaba gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay in aynan waxba ka hagran doonin